بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد مقطع ير وإنه كفصيرينه أما إنه كترجمينه سؤال لو يديي الشيخ مزمل الفقيري حفظه الله تعالى عز وجل قال ما حكم الذهاب إلى محاضرات العريفي حرام. سائلك وحيدي ومحي شيخ حكم كيلاد هاي إن لدقيستو محاضرات كنيك الله يقان عريفي حرام تمشي تحضر. شيخ وحلو حاران إن لدقيستو محاضرات كلينيك الله يقان عريفي للدكتور محمد العريفي ninka doctorka ah macna PhD gaaray ee loo yaqaan Arifi in dhageysto muxaadaraadkiisa oo xaraan buu leeyahay kaanu mubtadi' maxaa yeelay waa mubtadi' bidcola udal usafi waana nin nusan oo maangaba munharif oo leexsan oo jidkiisa saxda ka beeray wa dalaalaatu macruufa dalaalaadkiisa iyo lumitaankiisuna oo waxyaabo muuqda uu sheekhu leeyahay وما يجوز تحضر لسلمان العودة waxa kaloon banaanayn inaad dhageysato ninka loo yaqaan Salman al-Auda ninka loo yaqaan Salman al-Auda inaad isna dhageysato waxa xaraam buu sheekhu leeyahay labada nin ee sheekhu tilmaamayo Salman al-Auda iyo Maxamed al-Arifi labadu waa Sacuudiyaaniin Sacuudiga waxa uu dhashay oo halka jooga الذي يشبه الهواري Salman al-Auda siyo shabaha ama uu eeg ninka loo yaqaan Hawari خلقا وخلقا akhlaaqahaan iyo manhajhaan akhlaaqahaan iyo abuurahaanba waa nin shabaha buu leeyahay Hawari Salman al-Auda ومنهجا iyo manhaj ahaanba ما بجوز تحضر له ma banaana inaad dhageysto ragga noocaasiya ما بجوز الاثنين كله ما يجوز تحضر ma banaana labadan midkood inaad dhageysato Arif iyo Salman al-Auda labadaba لأنه مبتدع maxaa yeelay sanad mubtadi' وهو رأس الخوارج في هذا العصر الحديث waana madaxa khawaarijta casrigan iyo waqtigan joogno سلمان العودة وسفر الحوالي ninka loo yaqaan Salman al-Auda iyo safar al-Hawali ومحمد حسين يعقوب iyo Maxamed Xuseen Yaqoob ومحمد حسان وأبو إسحاق الحويني وياسر برهامي dhamaan ragga uu tiri oo dhan waa khawaarij buu leeyahay والحلبي iyo Xalabi شفت كيف وغيره من أهل ونبيل العوضي وغيره من البدع wuxuu u jeedaa iyo kuwa kale la midka ah ee iyaga bidca وخالد الراشد وحزب النور اللي بيسموه سلفي وهو إخواني iyo xisbiga loo yaqaano xisb an-nur as-salafi oo ikhwaani iyo sheekhu leeyahay وغيرهم من أهل البدع ما بيجوز تحضر لهم iyo dhamaan kuwa la midka ah bidca ma banaana dhageysto dhamaantood يعني بنكلم الناس anu dadku baan la hadlaynaa wax baan u sheegaynaa وبنقول لهم الحاجة waxaanu ku leenahay waxa اللي بتنجينا waxa naga badbaadinaysa anagu baan ku leenahay anagu من السؤال imaana su'aasha ilaahay iyo maalinka qiyaamo wuxuu weydiin doonaa wixii naga badbaadin lahaa ayaan baan dadka aanu sheegaynaa bimaana tabliiq iyo diinta gaarsiino ayaan baan ugu aan leenahay buu sheekhu leeyahay إنكم كتمتوا الحق وما كتمتوا الحق su'aasha ilaahay weydiinayo ah xaq iyo maad qarsan misameedaan qarin ayaan baan ugu aan gudanaa buu leeyahay بعد الناس على كيف inta kadib qofku soo doonaa sameeyo qof kasta soo doonaa sameeyo ما عندنا صوت بنجلد بين الناس ma haysano waqtigeeda maaha jeedal dadkaan ku garaacayno oo ku leenay hadhageysrina نقول لهم ما تحضر بنكلمك waana kula hadlaynaa bas أنا عارف الناس بيستجيبوا للحق waan garanay dadka qaar oo ajiibayo yeelaya xaqa وفي ناس بيركبوا راسهم بيرفضوا الحق iyo dad diidayo ka jeedhacoonaya xaqi oo ka tagaya oo qaadanin بطريقته soo doonaa sameeyaan احنا عملنا اللي علينا مرتاحين قاعدين وده والله waanu sameeynayo waanu radinay oo anaga si fiican isaga furnay iska raaxaysanay buu leeyahay intaas oo ku yigay maqdaci sheekhu Allah barakeeyo